الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الأحباب والعليال، ما أنتم ومالين وين وبلارن ومالين إلهي سبحانه وتعالى أين كل بلارني وأين صدح مالمود كهر إعلامنا مدحوينا مجلس كل إعلامنا إني أمدر الصومال meel kastay joogto ay u soo baxdo masaajidada iyo banaanada ciidaha lagu tukanayo, dabeetana ay gutaan salaadan quruxda badan ee qiimaha badan ee ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu ku weydiisanayno kuna baryayno inuu ilaahay inoo naxariisto, inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariistiisa inoo furo, ta samada inoo furo, ta arlada inoo furo. ballantii baynu 3 cisho kadib markaynu soonnay ee istighfaarsanay إلهي سبحانه وتعالى وبندقني ضعفينا يتال دردينا يا ودينا بلارنين أين كل صوناني تا إلهي سبحانه وتعالى ما أنت بلانتي أين سبنمي إلهينا سبحانه وتعالى وكم برك waxaa ka waraysan walaalayaal inuu roobka xilligiisii ka dib dhacay, waxaana inuu ah sunne amba sunno ahayd nebi maxamed salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh inuu inoo jideeyey salaadanoo kale. goor barqaa oo sidanoo kale ah ayuu nebiga saxaabadii dabadda ugu soo saaray, markaasuu rasuulku sal alla alay slam salaadanoo kale tukanay salaadda cidda u eg ayuu tujiyey, dabeetna khudbaddii buu u kacay. nebigu sala allahu calayh wasalam saxaabadiisii oo sanadkooda ula ballamay ayuu ku yidhi istikfaarta badiya, khushuucda badiya, ilaahay subxaana wa tacaala wuuna aqbalayaae kalsooni ku qaba allah subxaana wa tacaala, baryo ilaahay subxaana wa tacaala weydiisada naxariis iyo raxmad. saasuu ilahay marka ku waraabiyey. waxaana weeye sunnihii ambiyadii ka horreeyey nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam. nebiyullaahi muusa asxaabtiisii uu ku dhex jiray markii saasoo kale u biyo beeleen naxariistii ka fogaatay ayuu soo saaray. ilaahayna subxaana wa tacaala uu inoogu tilmaamay inuu u waxyooday uu nebi ku yidhi nebi ilaahay subxana wa taala muuse ku yidhi dhagax ku dhufo ushaada, markaasuu ilaahay subxana wa tacaala 12 ilood oo 12kii qabiil reer bani israa'iil ah ay la socday ayay qabiilba ka cabbay maxaan ku dhahday kaalin ka cabbay oo uu ka cabbay maxaan ku dhahday il gaara uu ka cabbay. sidaasuu ilaahay subxana wa tacaala nebiyullaahi nuux u tilmaamaya inuu asxaabtiisa iyo qowmkiisa ula hadlo an istakfiruu rabbakum innahu kaana ghafaara yursil asamaa calaykum midraara. waar ilaahu toobadkeena, ilaahay oo dembi dhaaf badan yahay, ilaahay subxana wa tacala samada idiin furaya, ubad buu idin siinaya, beeruu ilaahay subxana wa taala idiin jeexaya, beeruhu ilaahay idiin barakaynaya ayuu nebiyullaahi nuux isna ku odhan jiray asxaabtiisii. sidoo kale khulafaa uraashidiin cumar bin khadaab radi allahu canhu sanadkii loo bixiyey caamar ramaada ee asxaabta abaarta balaanne ku dhacday ee abaar aad u xuni ay ku dhacday ilaa loo soo gurmaday gobollada kale sida ciraaq oo kale iyo masar oo kale iyo ayaa looga soo gurmaday. muuminiinta xaggaa joogtay ayaa waxay u soo direen raashin iyo waxay kale kalaan biyo iyo waxay kale sahay, intaasoo kuna awr ayaa loo soo diray. sanadkaas caamar ramaada loo bixiyey ee gaajadu camimtay jaziirat alcarab ay camimtay ayaa ilaahay subxana wa tacala cumar khadaab ilhaamiyo wuxuu yihi dabadda u baxsii nebi maxamed dabadda ugu bixi jiray aan ilaahay barino subxaana wa tacaala. markaa cabbaas bin cabdilmuطalib oo nebiga adeerkiiyaa noolaa oo ugu da' weynaa, markaasuu cabbaasow ilaahay noo bari, kacoo ilaahay noo bari oo noo ducee. oo dadka waaweyn ee saalixiinta ah way bannaan tahay in la yidhahdo noo duceeyo, hebelow noo kaco noo duce la yidhahdo waa shay bannaan. halkaasaa laga dayday oo asxaabteena markay dadka muslimiinta ay leeyihin noo duceeye hebelow ama karaamo leh ama madaxweyne ha noqdo ama qof karaamo kale ha noqdo ama ha noqdo maxaan ku culummada waaweyn ducada waa laga dalbaa si ilaahay subxana wa taala inoogu naxariisto. sidaasay yeeleen markaa asxaabadii rasuulku sala allahu alay wasalam. sidaa darteed walaalayaal
maanta waxaan isugu nimi inay ilaahay barino qalbi saafiya ku barino dembiga aynu iska ilaalino aysa saamaxno ilaahay u toobad keenno qofba qofku wax ka hayo wixiisii u celiyo aynu soo saamaxno qalbi saalixa ayuu ilaahay ku aqbala waliba bishana waa bishii shacbaan waa bishii qiimaha badnayd waa bishii acmaashayna la qaadayey habeenka 15aad ee bishan oo habeenka salaasada ku beegmo filaya maanta waaba sagaale habeenka 15aad ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu soo fiiriyaa ahlu dunyaha ayuu soo fiiriyaa markaas ilaahay subxaanahu wa ta'aala cid kasta oo mu'miniina muslimiin oo dhan uu naxariistaa ilaa laba isu colaad su haya mooyaan laba qalbiga wax isugu haya mooyaane inta kale ilaahay uu ka dhaafaa dambiga iyo qof mushrika mooyaan oo gaalade laakiin mu'miniinta oo dhan barakada habeenkaas ilaahay subxaanahu wa ta'aala ugu dhaafaa masoo acmaashooda kor yeelaa acmaashooda ayuu kor yeelaa sanadkan oo dhan camalkeennii bisha 15keeda ayaa la isugu ururinayaa ilaahay baa loogu rafcinaya ilaahayna isku ka warhaya oo waxba aanay ku seeganayn laakiin si caadi ahaan 15ka shacbaan ayuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka dhigay maalin habeen barakaysan oo dadka u dambi dhaafo ilaahay subxaanahu wa ta'aala loo baahan yahay inaku inaan soonka badinno soonka bisha shacbaan inaynu badinno oo ilaahay ku dhowaano si bisha ramadaan ugu soo gasho inakoo diyaar garownay oo diyaar u ah walaalayaal maanta waa maalin weyn ilaahayna waan ku rajo badannahay qof walba markaad baxdo istighfaarta badi gurigaa ku istighfaarlayso suuqaa ku istighfaarlayso dukaankaaga ku istighfaarlayso xafiiskaaga ku istighfaarlayso meeshaad gaarka haysa ku istighfaarlayso astaghfirullah aynu badinno aynu taa badinno ilaahayna ay ku kalsoonaano nebigu wuxuu leeyahy sal slam ilaahay barya wa antum muuqinuuna bilijaaba ilaahay wax weydiista idinku ku kalsoon in ilaahay idin siinayo ku kalsoon marka kalsoonidana yaan la quusanin maalmo ka xun baynu soo marnay maalmo ka daran baynu soo marnay abaaratan ka culus baynu soo marnay ilaahayna waynu naxariistay subxaanahu wa tacaala qaar baynu tukannay sanadkiina 16kii waxaanu tukannay roobdoonta bishii December aynu tukannay roobdoon maantana waxaan tukanaynaa bishii Abril baynu tukanaynaa yani waynu soo adkaysanay bishan sanadka uu dhaamay sanadii hore uu dhaamay oo abaartu aad u badna laakiin biyo la'aan baahsan baa jirta taasaa keentay markaa inaynu gobollada oo dhan aynu ku camimno in ilaahay subxaanahu wa ta'aala la weydiisto hadday dhacdo ilaahay kama dhige oo roob aynu weyno waa ku celinaynaa laakiin ka quusan mayna ilaahay subxaanahu wa ta'aala ilaahayna subxaanahu wa ta'aala waa gacan ballaaran yahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala naxariis badan yahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuu isku keen eegayaa wuxuu eegayaa inaan iscaawinno wuxuu eegayaa inaan istaageerno nasiib wanaag maanta gobollo badan oo naga mid ah dadkoodii baa imika quudinaya oo biyo siinaya oo aynu ka warhayna xukuumaddu wax alla waxay awood lahayd oo dhan way dhiibtay boodihii baa shaqaynaya gobolladana ka shaqaynaya sidoo kale deegaanadii iyaga iscaawinaya oo ka barbar shaqaynaya oo iyaguma boodada ugu badan waa $300 $200 iyaga markaas ka ururinaya oo iswaraabinaya ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha ka aqbalo wax la bixiyo biyaha u sadaqa wanaagsan wax la bixiyo biyaha u sadaqa wanaagsan ilaahayna subxaanahu wa ta'aala gacantiisa way ballaaran tahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa awood weyn yahay biyihii wacagtiisa way yaallaan isagaasa soo dejinaya daruurtaayna dul taagan ilaahay baa amraya oo soo dejinaya inaku ma qasbi karno marka ilaahay subxaanahu wa ta'aala toobadkeenno ilaahay aynu u laabanno ilaahay aynu ka cabsanno ha laysa saamaxo sadaqada ha la baxsado ha la iscaawiyo qalbiga xasadka iyo xiqdiga iyo buqdiga ha laga saaro si ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo soo eego oo ilaahay inoogu naxariisto subxaanahu wa ta'aala walaalayaal nebigu sidaasoo kale markuu ducada bilaabayo wuxuu jeesan jiray xagga qiblada go'iisa ama cumaamadiisana dhinaca kale ayuu saari jiray marka waanu ducaysanaynaa cumaamadihiina xagga kale dhinaca kale iska saara waxaanu markaa uga jeednaa siduu nebi maxamed uga jeedayey inaynu ilaa nooga xawil abaarta barwaaqo noogu xawil macneed uga yahay ilaa abaarta barwaaqo noogu xawil weeye saasuu nebiguna saa uu samayn jiray duca ballaaran bay ducaysan jiray insha allahu madaxweynena kelmadda u dambaysay ducada ah iyo maaragtay dardaaranka yar ee ah inuu saamaxno uu inagu dari doono waxaanu ilaahay subxaanahu wa ta'aala weydiisanaynaa inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala naxariisto اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين اللهم انفعنا بحبهم واعصمنا من سبهم وتوفنا على ملتهم واحشرنا في زمرتهم يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم
اللهم وفق أئمتنا وولاة أمورنا إلى ما تحب وترضاه من الأقوال والأعمال والأفعال. اللهم وفق رئيس الدولة موسى بيحي عبده ونائبه عبد الرحمن الزيلعي ووزراه وعساكره إلى ما تحب وترضاه يا رب العالمين. اللهم وفقهم من الخير يا رب العالمين وإلى طاعتك أجمعين. اللهم اجعلهم رحمة بعبادك المؤمنين يا رب العالمين. اللهم عافهم واعف عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إن بالعباد والبلاد والبهائم من الجوع والعطش والضنك ما لا نشكو إلا إليك. كيوالكن هداف كمسلمين الله هداف إلهي بالعضاء نقابل إلهي بريمته نقابل إلهي مدر خير قضاء وطوفان إياد ضوئيل إياد ضرع هاي ومن شيء هاي مسير إلهي بالعلي شرف الآخرين إياد أما أنت بالعلي استغفرته نقابل دعاء دبديل دعاء وحبه وقاتل ما دبا إلهي باربريا دعاء فعل باربرنا هذه دعاء فعل مدرين دعاء وحبه كلمة إلهي بنا آمنا كل كان إلى ما الله موضوع خليفة ومراد يسوع شيء وإلهي بنا آمنا الدنيا وخليفة الأرض هم مراد مركب وحوي برواقرة ما مراد وصف عبد ما مراد لما توي كنا عقلها كيران وهكذا مركب أبارة سوى النقطين وحيلتها هذين فعل كل الدعاء وحلا كلمة فعل لا قدر أنت أين قبك وتكونات واحد فعلك كبرابنا إن رسولك بسورانا إلهي رسولك بسورانا بريء بن آدم أين رسول الله إلهي بحلانك بريء أنا جيت شوابيه إلهي مو أورن بن آدم بريء هاي هذا بريء ولا إذا نسكتينا هاي بريء إذا فرديا أو قينا أو شركة إلهي مو إلهي وحول الشقاية وإبريا أنا عاويه أبارا وحن كرب حكرا إنك أوسك بسورانا حوجين يحولين يسوقينا سدين وأبارت ورب حكرا كل قام وحنا نقول وحياتنا ورائنا البيئة والفرق والمكر يدرك يدور بين المكر يدور يا بعمل تبعت الحكم أو كيسوقين بيوها الضوحة عرنا يا واحد كبرى من لاغي يا وضع تاير قاري ومري يا ميل لو كهربته أما تحرات كبرى ما واحد ما تقف يلا ما تروح لكنا بيوها كبرى يا أبارتي تبني أنا بيسوي صانية بينها وين هو السوق تكرار وأنت بين قريبا بيها هو يحرك كرسنا ما بيهو هذا كرسنا حقوقي عياش ما عياش يونتا إقمام كسرتشي ورمير ووالد عينوله بنا آدم قضي قوينا أدرينا ربنا وقالين تلوها حب الله يقول بها الدين دولنا يدلنا وحي حولها يوحي أقوارها يوحي عقلها يروح يروح عنها إن حب بسوقنا إن حرب وهو بها قبل ذلك النبي وكسيران يا dadkiisuna wuu sii badanayaa qorshe iyo hawl baa inoo taala magaalooyinku way sii weynaanayaan magaalo weliba biyalaada xoolaha inaga baxa booydaha hargeysa waraabiya boqolaalka ee taayir leh ee bir la bedelo leh ee shidaal leh waxay inoo qaban lahayd dhaamo waaweyn oo ubadkeena waayo inaguna aynu hayno haddii la sugeyno walaalayaal caqli baynu u baahannahay qofka madaxda ah ee hawsha laga sugayaa tilmaan buu leeyahay dadkuna inay daacaan wax ku qabsadaan buu leeyahay ee qofka madaxa hadduu yahay caaqil hadduu yahay suldaan hadduu yahay sheekh hadduu yahay meeyar magaalo hadduu yahay gobol madaxweyne
waa inay tilmaan hagaagsan bixiyaan dadkuna uu ku adeecay wax la wada qabtaa haddii kale waxaas waxay noqonaysaa hadal iyo tuulo wax la qoray waxaan leenahay xooggeena iyo caqligeena biyo weynu qabsan karnaaye aynu isu geyno waa qodobka labaad waxa weeye dhirtii waxay Soomaalidu tiraahdaa waan baahanahay loola baahanayo markaad geedkii gubayso waxaad roobkaad fogeynaysaa zarci baad haleynaysaa waa inuu dhirta waa inaan dhaqaalaynaa oo jaridda ka daynaa inagoo baahan ilaahay arsaaqad kale u nastay karaya waxa kaloo inoo waajiba geedkii abaarta jabinaysa inaan wada jaraynaa intaasoo qof baynu nahay dhir weynu beeri karnaa waxaanu soo jeedinay berrito 15 sanad walba inaan dhirta beero maanta insaanu ka dhigno geed midho iyo mid harba berrito waxaan ka codsanayaa Soomaaliland gobolada inuu gobolada 30 kun oo geed beero qof waliba hadduu ka badin karayo ka badiyo si aynu uga baxsano abaar qodobka saddexaad dhulka ilaahayna siiyay u talayno xoolaaynu ku noolaa xoolaha waxaynu u baahanahay inaan dhulka u qaybino oo meelna u kaydino oo wax u beero saaraan ka dhigno oo jiilaalkii abaaraha ku baxsadaan inta kalena aynu laabano waa taraxumo dhulkeena oo ballaaran inaan xoolaha kala kaydin weynaa oo waxaan sagaal ka biirsan beerihii aynu seerihii u diidno oo loo sameyn waayo seerihii u dambeeyay dawladdu sameynaysa ee burca laga sameeyay dad baa ku dhintay ku dagaalamay kii hargeysa qoor caday waa la dilo xabad baa lagu riday wasiirka daaqilada markaa warcada ahaa oo leeyahay kayd ma doorayna walaaleel caqli ma aha dhulka deegaanka badna kaydsada inta deganay badna jiilaalka cuna dhulka ay kaydiseen haddii loo baahdo dadka waxay ka sii dhulka beeraha ah ee dadka badankooda beeraan xeerka beeraha galbeedka banka wajaalaha la raaco oo ah qofku markuu ka goosto wixiisa har mirihi iyo qarankiiba waxa soo haray xaabo waxa loo daayay ummadana wadaano geela intiisa badan hargeysa oo wax ku baxsaa beeraha laga goosto wixii ku baxay beer walo la midna saayis laga dhigo oo si caqli ah aynu shaqeyno waxaan leeyahay qodobada iyo kuwa kaleba haddaynu ku dhaqaaqno ducada allana ku darno qalbi iyo niyad sano wax wada qabsaana sameeyno abaaraha ilaahayna wuu naxariisan inagu waxbaynu qabanay walaalayaal macquul maaha hargeysa oo milyan maraysa geed deeble oo la ogeyn biyaha ku jira oo inta soo saarta aynu qasabada oo soo saarta soconaya garanayno biyo badan waynu qabanaa oo aynu xooggeena ku tashanaa xoog iyo xoolo hargeysa biyo way qabsan kartaa iyadoo cid u qayshan waxaan anagu codsanaynaa hadaan madaxdinahay aynu isugu tagno tilmaanta aan qaadano aynu isku wadarsano oo waliba mujtamaca hargeysa degan ha hogaamiyo shaki baa laga qabaa dawladaha oo waxbay hadayaan baa la israadaa hargeysa inta isu tagto oo xoolaha uruso oo dawladana ku darto oo dadka aqoonta aana keeno aynu muruqeena iyo caqligeena ku joojina biyo ku qabsan hay'adaha soo gaar ah waxay talbiso wadadina la mid ah oo inaan isku diilahay xoolaha la soo uriyeen qaadana sadaqada kinisa laga soo uriyo ilaahayna gaala bariyo nagu oran inagoo caqli qabna sallallahu alayhi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliiman kariima